odayaal dhalinyaro iyo haldoorka galbeedka degmada Sheekh oo kulan warbaahineed ku qabtay degmada Sheekh ee gobolka Saaxil ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay in laba beelood isku haystaan deegaanka Marso oo hoos yimaada deegaanka Calaacule. Odayaashan iyo waxgaradkan ayaa dhaliilo xoogan waxay u soo jeediyaan maayirada Berbera iyo degmada Sheekh iyo sidoo kale barasaabka gobolka Saaxil, waxaana odayaashan iyo waxgaradkani xukuumadda Soomaaliland uu garwadeen ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay ka codsadeen in barasaabka gobolka Saaxil uu si degdeg ah uga bedelo. beerana la iskuma hayo, dhul la iskuma hayo, maamul xumaa sidaa noo gashay. maayar cidin baanu tirinaynaa dambiga Marso markuu leeyahay waa la isku hayaa, cid iskuma hayso, annagoo dhammaystiran Maxamed Ciise iyo Muuse Cabdalle annagoo dhammaystiran, culimada iyada iyo cuqaashayaduba ay dhan yihiin, barasaabku joogo ayuu halkaa aanu arrintii ku galay, waa la dhameeyey, annagoo gacmaha haysan ka soo baxnay. dibadda markanu dawladda hoose uga soo baxnaa ayaa nimankii lagu boobay, waa la xidhxidhay, xaqdarray ku xidhan yihiin. xaqdarraa ku xidhnaadaan maayar cidin ayaa dembigaasoo dhan sameeyey. kolba intuu nin reer miya Marso ugu tukaabuu yidhaha halkaa iga iibi, dhul daaqayn weeye. Ciise Muuse iyo Muuse Cabdalle midna iskuma hayo, gacmahaanu annagu isaysana, culimmada iyada iyo cuqaashayaduba. aad iyo aad u cambaaraynayaa anigoo ku hadlaya afka dhalinyarada degmada Sheekh, gaar ahaan galbeedka degmada Sheekh. waxaanu aad uga xunnahay ee galabta halkan soo ka saaray dhalinyaro iyo cuqaal iyo waayeelba in arrinta xaqdarrada ah ee cuqaashayadii haldoorkayagii waxgaradkii la xidhay maalinta yowmulbahjiga ee xilligii khayrka ahayd ee dadku cibaadaysanaya ama khayrka ahayd ee qof islaamo damiirnimo aan dad xidheen waa dadkii xilliga walxaysanayeen ee ducaysanayeen ayaa dadka la qafaashay. anagu qafaalad ahaan baanu aragnaa in arrinkan cid baa ka dambaysa, waa operation ninba gaara iska wata, ninkaayna cidin baa iska wata ee magaalada ka ah ee gobolka ka noqday baan ku leeyahay rejiimka cidina ka qaban weyday. ninkaasu muddaba wuxuu duulimaad ku ahaa deegaan cid leedahay ayuu duulimaad ku ahaa. maruu dad reer miya intuu xoogaa yar u dhiibo yidhaahdo halkan aan cashuurtay oo sidan yidhaahdo in cidin waxaan leeyahay in cidinow dadku deegaan buu ilaahay ku kala beru kale leeyahay, layskuma xadgudbo. wixii daaqaynaha dadka guri cidino isma diito, laakiin deegaan baa original cid kasta ka soo jeeda ilaahay ku ogyahay, ilaahayna ku abuuro. sidaa odayaashu wa sheegeen dacdada dhacday ee odayaasha halkaa laga qabqabtay oo guryahoodii jooga ee laga kaxeeyey Berbera lagu shubay ee barasaabku ka dambeeyey yiri dadkii ma haysaa, iyagu micid bay doontay rag la iska joogeen. waxa weeye deegaankan dawladda dhexe waxa ka qabato beelo meesha isku haya ma jiraan. waa dad walaalaa, waa dad gacmaha ishaysta, waa dad isku mid ah. suldaan ayaan lena aad iyo aad baan u salaamay isagii cuqaashiisa iyo odayaashiisa iyo madaxda kale halkaa isugu timiya hawsha ka howlgashayba. waxaan doonayaa in nashiyuga la isku hayo yara muujiyo waxa meesha ka jira ee odayaasha lagu xidhxidhay ee tacadiyada dadka loogu geystay waa macdantaa ina cidin baa wada, ina cidin ayaa wada, deegaanka ka wada, kala qaybinta ku wada, colaadda ka wada, noocyo fara badan ayaa uu u soo dhigay. arrintaa la isku hayaana maaha deegaan, waa macdan. arrintaasu halkaasay ku daba leeday. waxaanu leenahay dawladda dhexe, wasiirka arrimaha gudaha iyo wasaaradaha kale ee qusaysaaba tallaabaa ka qaadaan oo wax ka qabtaan, si degdega wax uga qabtaan. barasaabka gobolku waxaanu u aragnaa nin ina cidin u shaqaynaya oo u adeegaya oo hawshaa ka ah hawshaa taageerada ugu weyn leh
ayaanu aragnaa waxa kale aanu halkan ka caddaynayna oo aanu ummadda u iftiiminayna odayaasha la xidhxidhay ee labada dhinac laga soo qabqabtee la xidhxidhay ee xaqdarrada ku xidhxidhan ee aan wax allaale wax dembiye leeyihin iyo waxay geysteen toona jirin arrintaa waxaanu aragnaa xaqdarro meesha leelaya oo laysku hayaa ee marso cid iskuma hayso waa dhul daaqeena oo magaalada calaaculle la yidhaaho hoos tagta oo ay xukumaan ina cidin malaa wuxuu mooday dee suuqsada iyo galooli maaha dee badha saabkana isagaa ku adeegta waxaanu leenahay odayaasha maamul xumada lagu qabtay si degdega horta faraha loo soo daayay iminka ee xaqdarrada lagu qabtay waxba may gelin cid isma hayn ciise muuse iyo muuse cabdalle dee waa dad wada dhasho walaalaa waxba iskuma hayaan isagaa munaafaqad ka dhex wada si degdega iminka faraha looga soo qaado ayaanu leenahay ina cidinna ma degi karo dee marso shaqana kuma leh nina degaankiisa lama tago dee adeer waxaanu leenahay badha saabkuna dee ina cidin buu u shaqeeyaa baan u malaynaya waa maxamed cali axmed maxamed kaabe telefishinka caalamiga ee bulsho degmada sheekh ee gobolka saaxil